بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أن كسر هذا بوجي وهرية إنجليش كا ليفل 0 كاسمو أكاديمي نرضى شرفت لهم سودويننا أن بوجي وحنكو قادم دونا first وحنا قلنا بوجي وهرية إن شاء الله وحنا كقابلنا دونا بوجن number 1 والفابتس كي إنجليش كا ولو باردونا إيو لقد basics كده iyo sidii aad dadka interaction isku horeeyay ama aad yani wala falgal lahayd ama luqadan wax in yar uga fahmi lahayd insha Allah isaad sentenisada bilaabay hadii waxyaalaha soo dhan okay aan maanta waxaan ku bilaabaynaa alphabets oo ah luqad walba marka la baranayo waxa laga bartaa xarfaheeda okay aan xarfaha unba waxay sameeyaan luqad inteeda kale xarfaha unba ereyada ka yimaadaan iyo wax alla leh wixii ku saabsan luqadaas oo dhan insha Allah okay maanta waxaan ka bilaaban alphabets English wuxuu leeyahay 26 xaraf 26 xaraf kooy 20 kamid ah waa shibanayaal oo waxa loo yaqaan consonants shibanayaal 5 kamid ah waa vowels waa shaqalo vowels waa shaqal okay aan si loogu dhawaaqo marka dhawaqa iyo example ayaan qaadan doonaa insha Allah a xarafka ugu horeeya a waa xarafka ugu horeeya Englishka aan waxaan loogu dhawaaqay a no a oo a si Soomaalidu yiraahdaan saa ma aha waxa loogu dhawaaqay a b c d D E F G H I J K L M okay way noo socotaa wali waxaan xagan ku haysan N O P Q R S T okay aanu gudubno qayb bala xagga hoose noo hartay U V W X Y Z okay aan dhawaaqi hadda wasla keenay ku celceli dhawaaqa aan video ku soo cesho kadibna dhawaaqa dhageyso sidaan ugu dhawaaqayno kadibna doon waxa isku daydaa insha Allah saas oo kaleeto inaad soo dhaweyso ama at least aad isku daydo maxaa ahayd inaad wax u dhow keento si uusan luqaddu marka hore xaggan ka bilaato dad xarfaas fiican ugu dhawaaqdo ereyada soo socdo markay dhaadheeraadana dhawqooda sax doonta insha Allah laakiin haday kuwan kugu adkaadaan kuwa kale tan way ku adkaan doon insha Allah markaas soo ku soo cesho kadibna ku dhawaaq ama isku day inaad ugu dhawaaqdo si aan anagu u dhawaaqno kale okay markan waxaan galay xarfihii oo erey ku jira yani xarfihii baan erey keenina okay inta badan isku dayna qaybahooda fara badan aan ku bilaaban a apple a apple b bag c cat D dog E egg
egg. Okay, sida sawirada ka arkaysaan ereyada macniin uma baahna inta badan aan kuwii aad sawirkooda garan weydaan baan macnaynayna. A apple waa tufaax waad arkaysaan. B bag shandad. C cat bisad. D dog waa ay. E egg waa bayd ama ukun. F fish waa kalluunki Soomaali asiguna. Okay, waxaan ku haysanaa iyadana xaraf kaleeto G. Okay, G for girl. G is for girl. H hat. I insect oo ah cayayaanka ama xasharaadka kolba saad taqaano ayuu noqonaya I insect. J jug noqonaya jagga biyaha lagu shubto ama garaafe saad taqaano kulliba. K koala waxaa la xayawaanka saa u eg waxaa laga helaa Australia intiisa badan laakiin koala umba la yidhahdaa koala. L is for lemon. Lemon waa linti. Lemon waa linti. M is what for man. oo ah nin Soomaali. Okay, M waxaa noogu xiga nut waa maxay? waxaa la yidhahdaa midhahan lowska maayo markay qobka ku jiraan ayaa la yidhahdaa nut or nuts. Orange waa qayb liinta ka mid oo ah burtuqaalkii ama liin macaantii ama bambeelmada kolba soo taqaano. P is for pen. qalin. Q queen qorad ay noqonaysa queen. Rabbit waxaa la yidhahdaa kaylaha. S sun qoraxdi. Sun waa qoraxdi. T waxaa example asagana taxi oo ah taxigan caadiga la raaco. T taxi. Alright, T wax noogu xiga waa maxay? U umbrella. V van oo ah gaariga caasiga ama noohada kolba soo taqaano. Okay, noohadii wixii ka yar weyn basna ka yar ayaa la yidhahdaa van. Alright. W waxaa lagu dhawaaqas window. X box. Okay, Z or Z waxaan noqonaya zebra. Okay, mid kale ayaa jirta inaad fahanteen kaleeto. marka eraygan xabad loogu dhawaaqayo erayada marka xabad loogu dhawaaqayo iyo marka ay eray ama oo ku jiraan kalmad dhamaystiran ay ku jiraan.
okay markay xaraf yihiin markuu erey yahay laba dhawaaqoodu kala yara duwanaanaya for example oo kale hadda markaan iraano markaan xaggan oo kale iraano hat kan marka kii lagu dhawaaqay xarafku wuxuu noqonayaa h baa la yaqaan soma laakiin markaan aan kelmad gelino wuxuu noqonayaa maxay hadii Soomaaliga ahayd oo kaleeto like hat hospital hotel all of them waxay noqonayaa maxay sida Soomaaliga oo kale okay qaybaha inta fara badan Englishka xuruftiisa waxay leeyihiin dhawaaq Soomaaliya even faawalada markaan ka hadlano shaqalada hataa xagga waa maxay I somaha I laakiin mar lagu dhawaaqay I mar wax lagu dhawaaqay sida Soomaaliga di Soomaaliga oo kale for example hadda insect wax lagu dhawaaqay as alright mararka qaar I lagu dhawaaqay jiri doonta laakiin no lagu dhawaaqa oo dhawaqii Soomaaliga waqad caadiga ayuu sameeynaa okay apple Soomaaliga sidoo kale somaha apple okay ma inta badan no lagu dhawaaqa si Soomaaliga kale tan waa lagu dhawaaqa for example egg waa di Soomaaliga kale ta kale ka duwan iyadana waxay noqonaysaa ayna dhawaaqeeda q iyadu way naga duwan tahay q bay ahaanaysaa oo yaani q anagu Soomaaliga qaabaan naqaanaa laakiin q iyadu waxay ahaanaysaa q only dhawaq Soomaaliga khalaanaysa laakiin n nacdi caadiga noqonaysaa like not name iyo waxa la mid ah okay waxa kale oo la mid ah rt caadi lagu dhawaaqaya rapid rag robot all of them waxay noqonayaan ra t waxa lagu dhawaaqaya si taadi Soomaaliga kale taxi ticket train s waxa lagu dhawaaqaya saadi Soomaaliga kale to sun and also source and also you have like a submarine sea all of them waxay noqonayaan maxay saada in kasto mararka qaar s dib u soo noqonaysa laakiin inta badan waxay noqonaysaa saadooda ayay okay you da waxay u shaqeysaa sida a ama o oo kale ayay inta badan u badan tahay markay maxay English ku jirto hadda for example umbrella ayay noqotay okay mararka qaar u ayay noqotaa sida university oo kaleeto understand okay dhawaqooda isbedelaya w da ayaa lagu dhawaqaa okay sida Soomaaliga oo kaleeto di Soomaaliga oo kale bay noqonaysaa window work what let's say like website all of them waxay noqonayaan zada waan leenahay laakiin xarfaas waan ku dhawaaqnaa laakiin xarf ahaan bayna u lahayn laakiin zada waxay noqonaysaa zaada yaada sidoo kaleeto yaadi Soomaaliga kale bay noqonaysaa marka yes dhexayso ama yogurt all of them waa sidii yaada Soomaaliga kale marka insha Allah inaad wuxuu dhan wada fahantaan isku daya oo dhageystaan dhawaaqida insha Allah ayuu qoran waa soo diri doona erayadan oo fara badan oo waxay noqonayaan as documentan baan u soo socodsiin doona insha Allah laakiin cashirkeeni kuwad maanta xaga ayaan uga baxaynaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.